kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada telefishinka caalamiga ee Bulsha TV oo maanta waraysi kula yeeshay magaalada Hargeysa Cabdi Yuusuf oo kamid ah dadka aqoonta u leh nidaamka golayaasha deegaanka Cabdi Yuusuf ku soo dhaw marka horeysa barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim wad maasanta Cabdiraxmaan adiga iyo halwadeennadaduba iyo TV-ga Bulshaba Cabdi waxa jirta in muddo dhowr cisho ka hor ay dhamaatay xilligii la doortay golayaasha deegaanka ee Soomaaliland marka maadaama uu xilliga ka dhamaaday waqtigan aan doorasho la gali karin sidee wax noqonayaan waa su'aal fiican Cabdiraxmaan oo waa run golayaasha deegaanka xilkoodu u dhamaaday wuxuu ku eegaa 29 March aynu sadda soo dhaafnay golayaasha deegaankuna sidoodaba waxay ku yimaadeen xeer 2002 ba xeerka la sameeyay 2007 waxa lagu sameeyay duwahayn baa lagu sameeyay waa xeer madaxweyne xeerkaana sheegaya marka golaha la kala diro ama xilkoodu dhamaado wax la sameynayo marka hadoo kale muddadu way ka dhamaatay xeerku wuxuu sheegayaa in golayaasha deegaanka marka xilku ka dhamaado ama muddadu ka dhamaato ma la kala diro in xilkii uu la wareegayo xogayaha fulinta dawladda hoose ama xogayaha fulinta heer gobol ama laamaha kale dawladda sida wasaaradda arrimaha gudaha kale marka nidaamkaas ayuu xeerku sheegayaa saadaradeed xilkii waxa hadda la wareegaya oo xeerku sheegaya in xogayaha fulintu xilka iska leeyahay marka xogayaha fulintu muddada uu haynaya intay noqonaysaa ilaa inta laga soo dooranayo golahan bedela oo la keenayo ilaa inta laga soo dooranayo xogayaha fulinta ayaa xilkaasi haynaya waan gartay laakiin se muddooyinka dambe waxa la sheegaya markuu waqtigu soo dhawaaday golayaasha deegaanka inay ka dhamaadeen xilligii waxa leeyahay madaxweynaha ayaa cid u magacaabaya taasay suurtagal ku noqonaysaa Soomaaliland sidaba waxay ku dhasaysan tahay waa xeerkaas hadii jeer wax lagu doortaa wax lagu bedelaa qof waliba kursiga ku fadhiya marka sida xeerkan golayaasha deegaanku sheegayaan xeerka ismaamulka degmooyinka iyo goboladu madaxweynuhu ma magacaabi karo sida xeerku sheegayo golo kale ama maayir kale kaliya waxa ku iman karaan doorasho loo qabto ma ku iman karaan inta ka horeysana xogayaha ayaa siyaaniya xilkaasi su'aasha kale ku weydiinay waxa ay tahay muddo dheer ayaad ka waraysay dawladda hoose habkay u shaqeeyaan marka muddadii ay marka dawladda hoose ay ka jireen magaalada Hargeysa joogtay inta badan marka waxqabadkoodii iyo habka ay u shaqeeyaan maxaad nooga sheegi kartaa sida boorta golayaasha deegaanka Soomaaliland wuxuu ahaa nidaam inagu cusub oo 2002 markii la aasaasay waxay shaqeeyeen oo ay soo mareen habab kala duwan waxay qabteen nidaamka golayaasha deegaanka runtiina waa nidaam ka jira Afrika dhowristeetanadii Afrika ka bilaamay waa maamul daadijin waxaana loogu talagalay horumarka iyo isdhexgalka bulshada iyo qayb qaadashada siyaasadda inay qayb ka ahaadaan laakiin leesma wadin laakiin nidaamkeena anfacaya ama nidaamkan oo kala mise waa nidaam kale sin la socono nidaamka golayaasha deegaanka Soomaaliland qaatay waxa laga soo minguuriyay waddanka South Africa nidaamkeegu wuxuu qornaa dhowr 70-nadii marka inaguna waxaad moogtaa inaan ka soo dheeganay nidaamka South Africa xilligaasi qornaa sidiisiba loo soo qaaday dibatana xageena la keenay isma wadin markaasi miyuna anfacay misayna ma anficin waa la qaatay ilaa haddana waa dareemi kartaan cabashadu inay meel walba ka taagan tahay marka golayaasha deegaanku wax qabadkoogii waxa kugu filan macnaha ra'yiga dadweynaha markaad u fiirsato gobol kasta oo laga qeylinayo wala diiday waxa lagu diiday wax kala ma aha wixii loo doortay ama wixii loo sameeyay ayaa muuqan waayo meeshka iman waayay saadaradeed ma garan karo runtii wax weyn oo soo kordhiyeen laakiin se marka la eego labadii jeer ay isbedeleen wax qabad uu jiraa waxaas laakiin la qabanayna ma aha wax ilaa hadda weyn oo loo oran karo wax waaweyn oo ay ummaddu ay soo kordhiyeen waynu garan karnaa waxa loo igmaday dawladda hoose inay mataqaanaa maamul daajisin ay tahay in ay shaqooyinkooda ugu muhiimsan tahay inay quruxda magaalada inay mataqaanaa nadaafadda magaalada maxaan ku yiraahdaa iyo cashuur badan oo ay qaadaan wadooyinka ay hagaajiyaan waxaas oo dhan way jiraan marka musuqmaasuq badan baa la sheegay musuqmaasuqa maxaad ka oran kartaa
dowladda hoose lacagta soo gashaa gaar ahaan caasimadda oo kale lacagta soo gasha lacag yar ma aha wax lagu qiyaasaa ilaa dhowr 2 milyan inay sanadkii soo gasho cashuur badan bay qaadaan kabba dowladdu siisaa lacag fara badan way soo galaan marka loo eego lacagaha iyo dakhliga badan ee soo galana iyo waxa ay ku qabanayaan dabcan wala soo diin kara meesha in musuqmaasuq weyn jiro moogto runtii waxaad garan kartaa oo ku muuqanay markaaba in hantilusi badan meesha uu ka jiro golayaasha deegaanku sidoodaba ma laha xeerku uma siinayo wax bushaar ah golaha fulinta iyo golaha joogtada ah ayaa gunooyin leh laakiin golaha inta aan xil haynin waxay leeyihiin guna fadhi bay leeyihiin markay kalfadhi sameystaan ay kalfadhi qabsadaan ay guna leeyihiin marka qof aan mushaar lahayn oo xeerkii mushaar siinin oo haddana taajir ah wadar kastoo siduu guryaha iyo dhulku haystay wax haysto meesha wax ku jira wax weeyaan musuqmaasuq weyn oo ay runtii sameeyeen musuqmaasuqaana wax weeyaan waa mid ay u sameeyeen oo gobolada dhan ay ka sameeyeen laakiin waxa ugu daran waa caasimadda Hargeysa weeye waxaan oran karaa anigu markaan eego muddo dheer baan magaalada Hargeysa waliba inta u badnaa golayaasha deegaanka markii la dooranayay iyo habka loo doortaba anu inta badan bulshadan eeda saaraa sababtoo ah waxa jirta bulshada markasta waxa ka soo dhex baxa dad hadhow laga cawdo marka miyaanay eeda bulshadu lahayn sababtoo ah dadkani bulshada ka dhex yimaadeen waana one man one vote waxa meesha lagu shaqeeyaa waad ogtahay qofku doorashadiisa xor buu u yahay qofku dooranayo marka eeda miinaan eeda saari karin bulshadan iyagu keenaya dadkan oo hadhowna cabasho badan ka keenayo oo dadka ugu liitay ayaa golay deegaanka noqday dadku eed bay ku leeyeen waa run oo dadku iyaga iska soo dhaxulaya qofkan xun ee meesha tagaya taas waa shaki la'aan laakiin eeda ugu badan waxa iska leh maamulka iska leh hogaaminta iska leh madaxweynaha markaa jooga ama hogaaminta markaa joogtaa waa inay iyadu garataa bulshadeedu nooca ay tahay waxaan ognahay bulshadeena Soomaaliland inaan u badanahay dad dawladnimadu ku cusub tahay oo aan maamul hore iyo nidaam hore aan soo marin iska reer miyi u badnaa maamulkuna ku cusub yahay hadba wixii qabyaaladuna heer ka taagan tahay hadba wixii miiska loo soo saaro inta badan ayaguna ay raacaan marka eedan waxaan saarayaa oo isleeyahay hogaaminta marba joogta ayaa eed iska leh way hogaamintu waa inay garataa bulshadeeda noocay tahay marka iyadu waa inay keentaa nidaam ku haboon dadka ay hogaaminayaan dabatan miiska soo saaraan laakiin haddii dadkii waxuun loo keeno waxa ay doortaan haddana la eedeeyo anigu marka qaarkood waxaan israadaa taasi waa gaf weeyaan marka eeda ugu weyn waxaan saarayaa hogaaminta markaa joogta weeye madaxweynaha ugu horeeyo su'aasha ugu dambaysan ku diinay waxay tahay maxay kula tahay maxay noqonaysaa dirgolaha deegaanka iyo habkan uu mataqaanaa ay u dhici doonto doorashooyinka cusub see wax noqonayaan baad u maleynaysaa Soomaaliland dhaqan baa ka jiro marka nidaam la soo kordhiyo dib ay ugu noqoto Soomaaliland siyaasad fara badan baa la soo kordhiyay laakiin dib looguma noqdo lama yiraahdo siyaasaddaasi miyana anfacday mise ma anficin nidaamka golayaasha deegaankuna wuxuu ka mid yahay siyaasadihii la soo kordhiyay ilaslaha ummadda iyo dalkaba lagu hormariyo oo maamulka lagu daadajiyo nidaam fiican buu ahaa runtii laakiin nidaamkii aynu qaadanay dib ugu maynaan noqon ismaynaan weydiin nidaamkaasi muxuu inaga anfacay maxaanu inaga anficin maxaa laga yeelayaa waa su'aal dabeetana waxaad moodaa leeyahay qolo walba ay tirun waxaan iska socdaan marka anigu golayaasha deegaanka ee soo socda waxaan ku talin lahaa in nidaamka la bedelo oo laga dhigo nidaam ummadda anfacaya oo bulshada la isku yeedho oo la yiraahdo war maxay noo dan ah nidaam noociyay anfacaya nidaamka South Africa laga soo minguuriyay ee la soo qaaday ee shortcut-ka ah in qaabkan loo shaqeeyo ayaa anfacaya mise nidaam in anfacayo bulshadeena iyo baahideena ka turjumaya ayuu sameeysanaa marka doorashooyinka soo socda aanu ma jecli runtii in doorasho noocan oo dambe la qabto waxaan jecelahay marka nidaamka la saxo ee la hagaajiyo in dabeetana wixii anfacaya marka ummadda loo soo bandhigo oo doorasho loo qabto xeerka golayaasha deegaanka in South Africa laga soo minguuriyay maxaynu ku garan karnaa
maxaa lagu ogaan karaa xeerarkan golayaasha deegaanka laga keenay halka lagu tashaday baaritaan baan ku sameeyey baaritaankii akharkii waxaan helay nidaamka golayaasha deegaanka ee South Africa dabatankii baan si fiican u akhriyay waxaan arkay markaa in nidaamkiina Somaliland ay isku mid yihiin markaa waad garan kartaa labada wadan ka horeeyay waayo South Africa waxaan garan karnaa in dawladda cadaan xukumi jireen oo nidaamkii qornaa markaa waad garanaysaa labada dawladood ka horeeyay kalabada xalka soo koobi gareeyay sidoo kale waxa ay caddeyn ku sheegaysaa oranaysaa misalan qodobka dakhliga oo kale waxa ku jirta qodob oranaya dawladaha hoose nidaamka dakhliga ku heli karaan waxa ka mid ah lacagta ay baanka dhigtaan dulsaarka ay ka helaan marka qodobkaasina waa qodob ku jira wadamada hadii jeer gaalada ah oo inagu dad islaamay nahayo hadii jeer dulsaar iyo interest ama ribo ma qaado mana isticmaalo marka qodobkaasina wuxuu ku cadeynayaa in nidaamkan aynu wadan kale ka soo minguurinay dabcan waana South Africa weeyaan wadankeena ugu dhawaay markaasi waxaan laga soo qaaday maasantay halka waxaa noogu dhamaaday waraysigii aan noo yeelnay Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dadka golayaasha deegaanka daneeya arrimahooda daawadayaal intaynu ku kulmayno barnaamijka mid lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabad gelyo